داوديال كسو dhawaada barnaamij gaar ah oo aan iska diyaarinay musharaxa da'da yar ee xisbiga kulmiye golayaasha deegaanka ee magaalada Berbera isku soo taagaya Mustafa Ahmed Xulow oo habeenkii xalay ahaa xaflad aad u balaaran lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Berbera hadaba barnaamijkaasi ayaa sida tan u dhacay soo dhawaada xafladan maanta aan isugu nimid aan ku soo dhaweynayno xildhibaan Mustafa Ahmed Abdullahi hawsha waxay noo furi doono oo xogaa kelmado xafladan ku saabsan musharaxan xafladan musharax ku saabsan inoo sheegi doona xildhibaan Saleebaan halkan loo magacaabay Mustafa Ahmed Abdullahi reerkan la yiraahdo ninkii ay iska soo xuleen xisbiga kulmiye oo halkan aan caawa xafladan لا نشوفه لقاسو إلهي هوفد اسمه كبير حقوليس ما دام بهوين تلهر كذا ما أنت كشرح عليه مشرف ونوعية فربضان وسكوت شرو أو أقوياهم كتشوجو وتعليمي تشوجان وداش تشوجان هذا واحد نقول سود ويننا ميكروفون كمان كان كلمة ذا كوران دونا عوالة سهل حفلة واحد لوقت مشرح داير oo iska sharaxay xisbiga kulmiye isuna sharaxay deegaanka golaha deegaanka ee gobolka Saaxil waa Mustafa Ahmed Abdullahi waxaan markale tasaddexaadna waxaan habaliyaynayaa مشرحات هذا ير إن شاء الله أهمية هذا أنت الله سوك عدي الله كوبولي وعن كلو دردارا فريا باش صوت دورتي مشرحة إيوه تاجر ياشي سبب سيدا ذم كوسوا أجاسنتين حفلة ده وناكسنة قلت ماتين كوك قرب كلا أو هكوبوليست أبو مسيح يوضع عواله وفي هذه دردارة مهمة إنه شيء أنا هذه أظن بلينا يا حارك اسمعوا كقبلوا ذي بويكا حبك يا أنا كجيت صعد كنت مريض السمالة أفكيت حدود السعودية ما قاعد على ذي الصبر وحنوت تريد ولا قبل يراو قبل ولا هذا عشايب قفك يعود كتورة أنا دور رياضة الكلام بهدوته أكو ذلني وياه أنا أنت نفتيسة ما كيو عداته عدالة شيفتا هديه كعوضه ولا يسكو هبي أريا كروجاي عشايب نيان أثنين رولا جبوبي وريان كهدافة يقول عرايا عن عامية إيجن عروت الضناينين عد كاجا وناكسن يا رقصين عشايب يدينا وناكسن بركو عدو هيستي حقي كعروضي والله بحيدورك هذا ده مرايي وصو عليدينك هدي بنلعب كينا على واريحي أنت يا على كينا فاوي عد كاجا عشايب أنا أرد نوير يا راني جوا وأنا عقلي يسوي هي عرجينا ولا هذا هريسي مركي العرابي هي العصر قابل هجا كله جوي أنا وكعريسن أين تلعب شوكته هجا عرض دوده أنا جو 10 كيلو الكي كويلاوي أنا أروح ذيو أبان علوي كل ميعاد كسية على ما صار كعاوية صوتك حسيس كده كنا وغاش كبيري الله عن ترافله عشايب نيكو عدك قاطي عبار مركو هايستو أبان علوي شلالك عضاضي لهي عبيد دينته مركو عركو هوري هريد عن توقي عدي كبلابي حري أمير كله إذا مقعابي نيكو يعودي مركو أديو كعوضو عدالة شيفتا ونسكو هبي عريا كروغاي عشايب الله وشغيستي وقو عقل قابا تنين عريقين عقيبة لخيم با ودكاغا وناكسن على واسين كل ميعود كسية على يمها سارة وعاوية صوتك سيسك دلكينا وغاش كبيري الله عن تراب إذا سنفسوا قابلنا يا أدكابضا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هلك waxaa laga sheegay musharrixiyan soo dooranay waxa ay soo kiciyeen qowdsanay musharrixo kaliya ma xafladda waxa loo qabanay waxa weeye beedii reeri dhammaanteed oo aan ahayn إلا فرح بعيدا ما إلا جبريل
beenta la yidhaa dhammaanteed oo ku soo biirtay xusbiga kulmiye ku biirtay ayaa ujeeddada ugu weyn ee hadafka iyagu ahaa ay tahay waxaa kaloo aanu annagu halkan xafladayda noo labaynayey musharaxa nooga qayb gelaya musharaxiinta gobolka deegaanka ninkaasina waxa weeyaan mustafe axmed cabdilaahi waa dafle xoolo weyn waa dafle waxaanu leenahay oo aanu asxaabta kale ee ka soo qayb gashay xafladda iyo madaxda u sheegaynaa dhammaan beedda reeriisa inay taageersantay xusbiga kulmiye iyo xukuumaddaba annaga oo mid yar iyo mid weyn cuqaashayadii wadanna sulaadiintayadii wadanna iyo madaxdayada noogu jirta madaxda qaranka oo uu ka mid yahay cali cumar maxamed waxaanu intaa waxay raacay waxaanu leenahay sidaasoo aan ka noqnoqosho iyo kala baydhbaydh aan reerkaygana lagu aqoon ayaanu ka diyaarsannay inaanu nafya maalba la raacno xusbiga talada haya iyo xukuumaddaba wuxuu inoo sheegay inoo waadixiyey in maanta beesha weyni ay xusbiga kulmiye si haddaba u soo gashay horena u ahayd runaatii horena xusbiga u ahayd maantana waa soo wada raaceen aad buu mahadsan xuseen hadda waxaan mikrafoon ku soo dhaweynaynaa suldaan cali saleebaan salaanka bacdi xafadan aynu ka soo qayb galnay musharaxan dada yar leh ee mustafe axmed cabdulaahi waanu soo dhawaynaynaa aad iyo aad baanu ku soo dhawaynaynaa marka labaad isagana waanu u dardaarmaynaa waxaan dardaaran baanu siinaynaa horta waxaynooga horraysay hargeysa musharaxnimada malaba musharaxii ugu horreeyey berbera laga soo saara ninkanu reer hargeysa waxay ku soo qoraan dhallinyaradoodu xafladahooda inay ka dhigayaan magaaladooda nayu hargeysa laakiin halkudhagyadaas ayaa laydinka sugayaa adinkana haddaad tihiin dhallinyarada cusub aysa soo sharaxaysa inaad ku soo qortaan haldhibyo nayu berbera oo aad wax ka beddeshaan wixii hore kastaybkaba aad u fiican tahay oo maayarka gobolka joogaa uu wax badan inoo qabtay hadday laamiyo tahay hadday garoon tahay oonu ugu soo dhawaynaynaa waxaa ninkaan dadka oo mahadnaqinay ilaahay uma mahadnaqo marka maayarka iyaga horena waxaanu leenahay waad mahadsan tahay hadduu gurikaayana walkan baanu leenahay ku soo dhawow dee nin abwaana baan hoo horta waan habranaya abwaan qaran baan he abwaan qabiil mayhi inaan aanu adeerahay ama aanu ilmaadeernahay aan iskugu toosannahay ilmaadeer aanu iskugu toosannahay baa meeshay keenay waanu ku mahadsan yahay codkaygana waan siinayaa magac iyo maamuusna wuu igu leeyahay waxaa ii raacaa laba ninoo mas-uul ahoo halkan fadhiya guddoomiyaha iyo maayarka guddoomiyaha ismaanu aragee maayarka waanu saragnay kal hore magaalada sida wax uga qabtay baan ku ammaanay xaqeeqa aan ku ammaanay ammaanu leeyahay guddoomiyahana dee niman asxaabahoo aan kulmiye ahoon meel wada fadhiisanno oo aanu saaxiibannahay farintaan u soo diriyey guddoomiyaha way kala habsaameen ammaan baan u soo jeeyey kolkaa waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin haddaad wax qabateen gobolkiinni baad wax ka qabateen waajibkiinni baad samaysay si wanaagsanna waad u wadaan ilaahayna garabkeena ha galo maxaan ku dhahaa muxaafid iyo mucaaridba in lagu farxo waa mid waajiba waxaan kolkaas sidaa waxaan leeyahay qolooyinkeenna reer qudhac bal sidii aad ii rideen ha u ridanayna u salaamaya
madaxda gobolka saaxil ee ugu horeeyo gaarhayaa ka yahay maxamed cali saleymaan barasaabka gobolka maayarka cabdalla maxamed carab maareeyaha dekedda injineer cali maxamed waxaan kaloo salaamaya odayaashayda halkan soo fadhiya ee beesha ana ka soo jeeda ubadkii ka soo jeedo ee reer ilan ku faraxsanay ay ku soo bireen xisbi xaakimka aan ka mid ahay ama aan ka tirsanahay kulmiye aad baan idinku soo dhaweynaynaa iyo musharaxa daada yar ee mustafa cabdillaahi axmed oo reerkay u soo xushay inuu maanta golaha deegaanka ee berbera iska taago isagana taageero buuxda ayaanu siinaynaa waana kugu soo dhaweyn ilaahayna waxaan kaaga baryayaa inuu ilaahay kuu fududeeyo in xilkaa ay reerkaynu ku idmadeen inaad ku guulaysato insha allah bimillahi karim aad baanan kuu mahadsanaa waxaa la yidhi haddaan gacmo wada si bay wax u qabtaan baa la yidhi haddaynu tafaraaraqno waxba ma soo saari karno laakiin maanta waxaan ugu hambalyaynayaa odayaashayada iyo dhallinyarada beesha reer idle ee maanta gartay aqoon-yahankooda da'da yar ee mustafa cabdillaahi axmed ee ku soo biiray xisbiga kulmiye ahna musharaxa koobaad waan idinku hambalyaynaa boqolkiiba boqol baan idinku maanta talo wanaagsan aniga hadlaaya haweenka xisbiga kulmiye ama ka mida toddobiyo xubnooda guddida fulinta ee gobolka saaxil waxaa naga ballan qaado inaanu anagu si cadaalada allaalo wixii xisbiga ku soo biira ee cusub iyo wixii hore ugu joogay aanu ugu wada shaqayn doono mushaarixiinta 22 xubnood ee aynu ku leenahay gobolka saaxil degmada berbera ahaantii waxaan jecelahay anigu inaan nin kasta oo musharaxa ama haweeney musharaxada xisbiga kulmiye ahba aanu u shaqayno oo si cadaalada iyo sinaana ugu shaqayno maadaama anagu nahay guddidii fulinta ee gobolka saaxil مصطفى أحمد حولو كسر دوام وعفرم بقى كسر دوامنا وكوش قينا ورهانت ستة عدا أيام كوش قين كنا ماريا دكتة سلادين تا بس هالكم فريدة يعاو مشورة هذلو فريدو أنا هذا هوانك وحلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan ee khayr badan waxaan Ilaahay nooga baryayaa in fadligeeda Ilaahay naga aqbalo oo inoogu naxariisto oo noogu amiin ya rabbi amiin inta hadii aan raaco runtii aniga waxay ii tahay munaasabad khaasa maadaama anaha degaankii ugu horeeyay ee degmada soo mara dulkii magaaladana aan ahay waxay ii leedahay fiiro gaara oo ah khibraddii aanu ku waajahnay 10 sannadood oo golahan deegaanka aan nahay waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa beesha halkan fadhida oo wada garanayo aqoon-yahankeeda mas-uuliyiinteeda cuqaasheeda waxgaradkeeda inay si wanaagsan isu soo agaasiiyeen waxaanay soo saartay inaan dhalinyaro ah oo shakhsiyan isaga iyo caailadu ka soo jeedaba aan aqoon badan u leeyahay oo runtii ku kalsoonahay inuu wax badan ku soo kordhin doono deegaanka haddii ilaahay fursadda lagu soo baxo uu siiyo waxaan jecelahay inaan baaq u diro beelaha haray waxa weeye sidaa caawa beesha reer ilaahay u soo saartay aynan kaa dhalinyarada leh akhlaaqda iyo kartida iyo aqoonta ufana u soo saartay waa in lagu xisaabtamaa waxa deegaanka laga doonaya inaan ahayn magac ee ay noqoto in wixii aad soo xulataan aad keentaan ee soo miidhaan ee rag wanaagsan oo keentaan midhaheeda uuna helaysaan haddaysan noqoto in la iska geeyo iyo tacabkeedu baa helaya waa baaq aan u diraayo iyadoo imika bilow ay tahay oo Mustafa ugu horeeyo caawa xafladii ugu horeysay aanu ka soo qayb galnay waxaan leenahay caawa sidaa wanaagsan oo soo agaasinteen waa ku mahadsantiin laakiin mid baan idin sheegayaa hawshu way dambaysaa waxa dambaysaa mid aan lagu fadhin kuraasi oo halgan adag loo galaayo Mustafa sidaa kaga harine waxa la doonayo siduu ku soo bixi lahaa in hawl adag u gashaan idinku oo aydan fiirsan ay fadlan aad iyo aad
حيان دين خبريين يا والسود وين يا واستفروا دعاء وحلاها كبرية كلهم نقضوا كي تسكي سيد قدي سوح مدري ودنيسا السلام عليكم وهرين بسم الله الرحمن الرحيم وهرين هلكم waxaan ka salaamayaa warasaabka gobolka maareeyaha maayarka salaadiinta xildhibaanada aqoon-yahanka waxgaradka haweenka ee maanta caawa xafladan ka soo qayb galay xafladan aniga lagu caleemay saariyay waxaanan mahadnaq gaar ah u soo jeedinayay beesheeda odayaasheeda iyo madaxda beesha laba habeen hore iyo caawa xafladiya intaaba ku hawlanaa sidii ay beesha uga soo dhex saari lahayd qofkii uu matali lahaa reerka xildhibaanka golaha deegaanka ee gobolka dhexe hawshu ama shaqada inoo taalla waa qalcaddii koowaad waynu ka soo gudubnay alxamdulilah waxaynoo hadhay qalcaddii ugu ballaadhay taana waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu gelay sidaa imika inagoo isku duubanaynu wada soconno inaynu sidaa ay taana kaga soo baxdo oynu weliba ku guulaysano ayaan ilaahay idabkii ka rajaynaya oo ilaahay nagu hasto weliba aad ugu mahadnaqaya علي محمد عمر علي عمر محمد ورنتي ماريها ورنتي عليس وين اسكساري هاوشن ما دام يسوي هاي مدحدي دريك هي مدحدي قبل كم وعنون ولي مركل آد قوم عندك حل بعنده سلادين تين قليرتا انت بون يدي ما عندك يعني ما عندك بعوي تاجت وحي كلا وينو كلا دنبيه بسم الله الرحمن الرحيم ماريا دكدا ماير كمقالة بربراء xildhibaanada guurtida halkan inala fadhida salaadiinta uqaasha indhaargaradka madaxda cusub laftigoodu ee gobolka saaxil ee kulmiye guddoomiyaha iyo xogayaha cusub ee la magacaabay xubnihii hore u joogay dhammaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii kulayl baynu joognaa rabadaanna waynu joognaa hadalka bacda rabadaanta inuu dhigan doonaa insha allah xildhibaanada dambe markaynu isugu nimaadno iyo maalinta la kulminaayo caawa waa 17kii rabadaan marka hore meel la isugu yimi in kullayba ilaahay la xusuusto waa habeen rabadaan waa habeen aad u khayr badan waa habeenkii quraanku soo degay waxaan filayaa meelaha qaarkoodna waa habeenada adag buu ku jiraa ilaahay ay noo fududay hadii uu ku ducaynaya caawa aniga laftigay waa habeenkii la magacaabay habeenada 17kii rabadaan ayuu magacaawgayga ahaa halkan bay xafladeedii ka dhacday habeenkii rabadaan si saddexaad alxamdulilaahi rabbil caalamiin kumaanaan khasaarin waxaan filayaa in wax badan oo aan ku fikiri jiray aan qabanay wax badan aan qaban doono caawa halkudheg baan siinayaa xildhibaankan waxa weeyaan berbere inaynu siraadno reer berbere diyaar mawtiin berbere waynu siraadaynaa berbere sanadkiisaynu xisaabtamay ilaahayna wuu isku kee gaadhsiin doonaa berbere waynu siraadaynaa waxaan soo qabsanayaa halkudhiggii gaaxnuug xildhibaankaa waynu la shaqaynaynaa iyo kuwa kaleba wuu inoo bilaabay wadaadadu aad bay ugu ducayn jireen ninka u bilaabaa iyo reer idlaba beeshaa inoo bilowday iyagoo beelihii kale isku maqan runtii wuxuun baan u dirayaa farriintaa uu cabdalla u diray innagoo xusbiyaanu noqonnay oo xusbiya leh haddana waxayni kama tagana beelo markaynu runta isu sheegno beel waliba inay gudaheeda isu soo xadhato oo si aanay u dhicin ay cidga soo saarto keliya isdaba taagto ayaa runtii muhiima oo laysu tanaasulo 9 urur ayaa ka tartami doona berbera dhiciddu way badan doontaa 200 in ku dhow oo xildhibaan baa tartamaya 22 baa soo baxaya 100 iyo dheeraadka kaleba way dhici doonaan
laakiin waxaynu ku baranaynaa dimuqraadiyadda iyo ciidaynu ku baranaynaa kulli aanu Mareykan ma kayboyna ka yar markuu dugsiga dhexe ka soo baxo dugsiga sare waxa la doortaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si ardayda isku kalaaska ay u bartaan sida wax loo doorto tartan baa la galaa ilaa halkaas ay ka soo bilaabaan inagu wali meynaan gaadhayna waxaanu maraynaa reerii baynu ka soo bilowno waynu gaadhi doonaa insha Allah mar aynu ardayda ka soo bilowno oo ardaydu ay doorato waa kan cali iskuulka aanu ka soo baxnay technical institute ugu lahaan jiray madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo guddi ugu lahaan jiray Abdallah waa kan iskuuladii hore oo dhan way lahaan jireen laakiin waxaas way naga burbureen dib u noolaynta waxay nala gashay inaynu qabyaaladii ka soo bilowno maanta reer idle aad baan ugu mahadnaqayaa iyagoo xusb xaakimka horena ugu jiray maantana isku soo wada raacay odayaashoodii dhergaradkoodii uqaashoodii xildhibaanadoodii in ay musharaxda ka noqdaan aad baan u hambaleynayaa waananu soo dhawaynaynaa waxaanan ilaahay uga baryayaa Mustafa in ilaahay uu ku guuleeyo oonu noqon boqol iyo siyaadada dhacaysa ciidana waa inaynu u diyaar garoobno